ciidanka waxaan u qornay oo u qaramaynay inay dalka difaacaan jabhadeyntu waa tii aan ka imanay reer 9kii aan ka imanay way jabhadeyntu waa tii laga yimid qorigani waa kii la dhigay beelaha laga soo qaaday maxaa ku celiyay qoryaha beelihii maxaa ku celiyay hubka beelaha maxaa ku celiyay wax la isweydiiyay maxaa beelahan teknikada u dhiibay maxay qaranka Soomaaliland qarannimada Soomaaliland maxay tahay kolkay ciidan beeleed iyo military maxay kala qabtaan adeer shaar dawladeed iyo shaar jabhadeed arisaaqo mudan niguma naadir lagu soo celiyay oo ka sii daraysan annaku hadii lagu soo celin waayo te annaku tani adeer umman tol weyn umman tag way nin walba qori buu qaadan waxa uu isa khilgiis ka ilaalinaya uu ciidan qarameed iyo wala sameystay jabhad maxaa la yiraahdaa war adeer annagu tan umman tol weyn umman tag way waxaan sheegaynaa shaar dawladeed aan isku imanay shaar qabiil iyo shaar jabhadeed yaan isku iman adeer war waxaan laan ayshan iyo 30 ka sano hal taliye guud oo ciidan ba kala aanay meesha anigoo ah sayidkiina Ismaaciil Sheekh Albeedkii guud beel kasto oo isaaqi waxay sameysay jabhad ay qaramaysay ay leedahay waa SSB iyo waa SS maxay iyo eg iyagaaba ka awood badan dawladii qaranka oo hubkii agsita war walaalayaal waxaan leenahay oo baaq halkan maanta uga dirayaa salaadiinta beesha isaaq waxgaradka beesha isaaq aqoonyahanka beesha isaaq maalqabeennada beesha isaaq waxaan leeyahay walaalayaal laga daayisada idinka inamadiina teknikada maxay hayday u iibiyay oo ku garab taagan oo budget ku siinay miyad garan weydeen inaad gelisiin dawladda dhaqaalaha oo qaramaysiin in kan jabadka ciidanka militariga Soomaaliland ag taagan waxaan soo joognay dawladda badan oo waxa soo kale ansixiyay burburna uu uga dambeeyay maanta laba beelood isaaqi haday isku dhacaan oo teknika haysataa qaranka idil dawladdu waxa kama qaban karayaan maanta waxaan arkaynaa annaku dalkii Soomaaliland oo dhan walba ka soo shidmay ya Allah leeysa waxaan la hadlayaa beesha isaaq baaqa waxaan u diray waa beesha isaaq wuxuu sameeyay waad wala ogtihiin waanad arkaysiin reer kasta oo isaaq beel kasta oo isaaq kamidii waxay samaysatay ciidan beeleed cid u ansixisay ma garanayno meesha qaran ma ku ognahay ma anaga garanayno cid u ansixisay maalin walba waxa adeecada ka socdo lidkii diyaaradaha haystaanada qaran ciidankii qarankuna uu agalayaa uu la joogaa annagu haddaan nahay beesha awdal iyo selel waxaan ognahay dawlad Soomaaliland leedahay dad saabuulayaan annagu ma jiro gada buursisi haysta tekniku iyo ciise teknika haysta midna ma joogo wadanka maxaa beelaha isaqa teknikada u wada dhiibay annagu askariga naga dhimanaya lascanood ee maalin walba jiida ku dhimanaya qaranka Soomaaliland buu dhintay jabhad isaaq uma dhintay war ciise nahay askariga maanta aan qornay annagu ciidanka waxaan u qornay qaranka Soomaaliland inuu difaacadeer annagu haddaan beesha ciisana ciidanka waxaan u qornay oo u qaramaynay inay dalka difaacaan jabhadeyntu waa tii aan ka imanay reer 9kii aan ka imanay way jabhadeyntu waa tii laga yimid qorigani waa kii la dhigay beelaha laga soo qaaday maxaa ku celiyay qoryaha beelihii maxaa ku celiyay hubka beelaha maxaa ku celiyay wax la isweydiiyay maxaa beelahan teknikada u dhiibay maxay qaranka Soomaaliland qarannimada Soomaaliland maxay tahay kolkay ciidan beeleed iyo military maxay kala qabtaan adeer shaar dawladeed iyo shaar jabhadeed arisaaqo mudan niguma naadir ilmaad reelo shaar dawladeed iyo shaar jabhadeed midan idinku imanno qabiil walba kolku teknika samaystay uu leeyahay ma garanaysaa aniga ma garanaysaa reer hebel haddaan hay maalin walba soo bandhigo waad ogtihiin maanta lokaya ina ka yara ka kulmaysanaya habeenkii in la qabto ma dheere la geeyo dooni iyo maanta ka timid sugayso gad bursiyo hub doonay baa la dhahaa maalin kasta lagu xidhaa in yaro kulmaysanaya ma Hargeysa oo tuun lagu xidhaayo waxa la yiri kalluun doontay ciidankii qaranka Soomaaliland waxaad arkaysiin oo maalin walba daawanaysiin inuu jabhad isaaq iyo ciidanka iska dagaalamayaan annagu askari ma waxaan qornay inuu jabhad u dhinto warjabadinta adeer waan ka imanay hal naga daayo
beesha isaaq waxaan leenahay hub wixii aad haysiin dawladda ku wareejiya adeerayaal wixii ciidan aad haysiin dawladda ku wareejiya sharafta dawladnimo waxay ku jirtaa inaad ku wareejisiin dawladda ku qarameeya qarashka aad jabhadnimada ku siinaysiin ku qarameeya walaalayaal sida ay ku sii soconayso tani ma garanayno adeer suudaan wixii ka dhacay waad ogtihiin in la oqoonsanaa ciidan beeleed oo hubaysan وكذا ويدين وحي كدعي عيدان كي قرانك اسكو يمادين وحي كدعي سودان ودركتي maxaa ka dhacay Suudaan labadii ciidan baa isku dhacay maanta hadii ciidan beel isaaq kamid ay qaranku ay isku dhacaan askari baa iga dhimanaya aniga wuxuu ku dhimanaa askarigaas markaa war ilma adeerayaal hubkanaad guryaha ku haysatiin dawladda ku wareejiya hubkanaad qiimaha la gashay dawladda ku wareejiya qaranka Soomaaliland هل لو دفاعه قرنيمه هل لو دفاعه وضنك الجبهدين لو دفاعي ما يد قرنك كوكي عيد ولا قبيل كستو يساخر كل جبهديه دي امه الصومال تعالين ويود الجبهدين هذا اقلي ما هتاسي انك وحان لنا هذا الريال اري ما هذا الريال وكدايه باقي لباد waxaan u diray dawladda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland ma u diray baaqi labaad waxa weeji ee dawladdu qolamaha oo ninka qaranka u shaqeeyay ninka qaranka u shaqeeyay qolo ama hay qaran buu shaqeeyaa waxa weeyaan walaalayaal war arinta waxa laga qabto dadka shicibka hubka gacantooda galay hal laga soo qaado dawladda gacanteeda hubka soo galo abniga Soomaaliland hal la sugo madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxaan leenahay gogol nabadeed dhig hubka shicibka gacmaha ku jirana dawladda lagu soo celiyo qarannimo lagu difaaco wadanka jabhadeen lagu difaaci maayo jaranka ciidanka militariga jaranka ciidanka booliiska dhamaantiin waxaan leenahay walaalayaal war sidan waxba ku xukumi kari maysiin ciidankiina cid ka madax banaan oo ku badan kolkay wadanka joogto maxaa xukumaysi waxaan leenahay hubka gacmaha shicibka ku jira dawladda gacanteeda lagu soo celiyo adeer hadii lagu soo celin waayo hadii lagu soo celin waayo ka sidaraysa annaku hadii lagu soo celin waayo de annaku tani adeer umanaan tol weyn umanaan tag way nin walba qori buu qaadan de waxa uu isa khilgiis ka ilaalinaya uu ciidan qarameed iyo wala sameystay jabhad maxaa la yiraahdaa war adeer annaku tan umanaan tol weyn umanaan tag way waxaan ni sheegaynaa shaar dawladeed aan isku imanay shaar qabiil iyo shaar jabhadeed yaan isku iman adeer war waxaan laanahay 35 ka sano hal taliye guuto oo ciidan ba kala aanay meesha annagu askarigaygu maalin walba ku dhimanayo aag jiida u hore jiida ma garanaysaa Soomaaliland uu qarannimo u dhimanayo waxaan u dhimanay jabhad ba waxaan moodaynay inaan ka imanay jabhadayn waxaan moodaynay inaan qaran u talaabsanay waxaan moodaynay maanta inay cagaha isku taagayso rajaan qabanay maanta hagaag bari bay ka fiicnaani sahan dambe si uu noqoni waxba nafta ku sabeynaa adeerayaal soo noqotay markaa waxaan arkaynaa wax ka sii daraya adeerayaal oo imika una hubu qaybinaysiin dadkii teknikadan ay isaaqo haystaan dawladda la ag fadhiyo xagee ka timid hadday wadanka kontraba ku soo gasheen dadka soo ururiya dadka haddaad ciidanka haddaad hubkii wadanka qaranka aad qaybiseenna dee qaybteedana sii adeer waxaad iska geysiin baad anaguna iska eeganaa leen ma aqli baa war Soomaa siyaad bari wuxuu sameeyay wad ogeydeen jabhadiye wuxuu iska wada magaranayay iyo ciidanka qaranka iyo kol kaliya wada hawlgeli wala iska hor yimiday sidii ku maqantay maxay ku maqantay laba beelood isaaqay maanta haday isku dhacaan oo teknikada haystay dawladda Soomaaliland waxba kama qaban karaysa awoodda kolka maxay tahay kolka dawladnimadu maxay tahay war dawladnimadu waxa weeyaan abniga ha sugta adeerayaal halkee lagu wada qaranka adduunyada kama dhacdo jabhad iyo dawlad meel ka wada hawl galay waxa weeyaan annaka oo kolka horeba tabanaynay oo saami qaybsiga dhanay wadanka haddaan siyaasi ahayna annaan waxba ka hayn oo wax alliya wax xasaanadahay Soomaaliland noo haysiba aynaan jirin kolka horeba wixii aan ku sugaynayna imika hubu qaybtanteen war adeer waxaan lahayd annaka haddaan aysanay nabadda adeer ilmaadeer baan nahay annaga nabadda ilmaadeer waxaan lahayd nabadani bay ku gaari aqoonsi oo wax eeg dawlad bay noqoni oo waxba hagaagi oo eeg rajaan qabni rajadii annaku maanta ma arkayna de rajaniga ma arkayna adeerayaal war rajaniga ma arkayna wadana si furfuraysi ma arkayna
taayiradii kala baxdeen oo shafka dhuka saaray tanina tu lagu sii socon karayo oo lagu wada noolaan karayo maaha adeerayaal annaku awdal iyo salal umaanaan tol waayin umaanaan taag waayin waxaan ciidanka idiin siinay ee jiidda ugu jiraan ugu dhimanayaan maalin walba waa qarannimada Soomaaliland sidii aan abnigeeda u sugi lahayn baan ciidanka idiin siinay adeerayaal inima annaan siin inay jabhadiyiin la howlgalaan haddii saasi ku sii socoto nin walba beeshiisu difaaci hadday desda ku sii socoto maxaad u malaynaysaa inay dhacayso maxaad u malaynaysaa kolka abni darrada waxa kow ka ah raggii hoggaanka u ahaa waddankan ee beesha Isaaq iyo kow ka abni darrada waddanka kolka ina koogi jabhadu ogolaadeen ay hubsiyeen ina kala socdo maxay qoriga ku diideen jabhadnimada iyo horseeday ina ka naas canood inuu qoriga iyo jabhadnimada galo iyo horseeday habar jecla qaadatay qoriga oo ciidan beeleeda samaysatay oo aqal walba qori suuga ku dul xidhatay adeer ayaa kale garxajis baad arkaysaa habar jeclaad arkaysaa habar maxay baad arkaysaa war maxaa ka sheekeynaa mana ilaahay laga yaabin kolkuu leeyahay Isaaq anigaa jabhad ahaanaya oo qoriga sidanaya anaana dawlad ahaanaya أنا جبهة كهانة يو هالكن وتكنيكية سيدني أنا دولة كهانة عيسية قد برسم حكي لنا بالله عيسية قد برسي مسعبولة بهانة يا كم هيدي إلى نمري قد يورا أخرج دمي هشام وداعا وبكي قومي ديا تدي كويري داي كورناي معلول وحبدن وان صومتو مان ميل جيرين مدحيو جيركي داي كورناي معلول وحبدن وان صومتو مان ميل جيرين مدحيو جيركي دفاعي وامين الله وقرتي سو عيدان بيلادو وإسكو هذا هقول قليني قوة ذكية جبهة إيو عيدا أسكاريغا قرنكا نيكا قوريا أكسيتي عذبوكو يادر وحي عذبوكا الصومالي أنا دولد مها لقود دفاع لذا نعم عذبوكا الصومالي لذا وحي لقود دفاع يا قرن نمو إيو دولد نمو إيو وذا جر إيو لقود دفاعي لكن جبهدين توضنا هذا لقود دفاعي جبهدين وقرن لقمة دفاع عادر حدي عاد ماشى فرفرتين وتكوكله تكتين ودي قايبتين ند ثاني وحنا نقول شيء عادر ورادر شان يصدم سنة رجيد إن يجي قبل ما تيجي كمارك إني ثاني وحنا نقول شيء ساقو عيسية قد بورسي وحنا لنا هي أنك هدانا قبل كأوضل يسلل ما نان طلوين ما نان تاجوين لكن دول نيمان دورنا شرف بان إلالنا سمر بان قبني أنتي بيدك كأنك حين يادر waxaan fariin u dirayaa beesha awdal iyo selal aqoonyahankeyga waxgaradkeyga oday dhaqameedkeyga in arinta wax la iska weydiiyo awdal iyo selal waxaan u dirayaa baaqa saddexaad waxaan leeyahay arinta wax la iska weydiiyo dabka soo huraya oo isagu soo shidayo dad inagu soo socdaadeer war hala tashadaan leeyahay وضبك انتو نسوق عليها لا بختي